hagaag salaamu calaykum soo dhowaada akhyaaray bartan waxaan idinkula wadaagnaa horena aan idinkula wadaagnay muuqaallo iyo qoraallo la xiriira caafimaadka iyo cilmu nafsiga sidoo kale casharo ku saabsan nolosha waxaa sidoo kale nagala soo xiriirtaan whatsappkeenna adigoo su'aal la soo weydiin kara farxad ayay noo tahay inaad nagu soo biirto waxaa inta badan lagu tilmaamaa inuu yahay xanuun qoto dheer ama gudaha oo qofka xanuunaya waxaana inta badan ay sii daran tahay oo ay sii xumaataa habeenkii iyo marka uu qofka dhaqaajiyo addimada ay saamaysay xanuunka lafa xanuunka danqashada ama xanuunka daran ee lafaha waa dhibaato bulshada ay aad uga cabato gaar ahaanna da'da dhexe iyo dadka waaweyn markasta oo da'daadu sii korodho jirkaagu waxa uu ku dhacayaa isbedello badan baaxadda murqaha iyo cufnaanta lafaha ayaa guud ahaan hoos u dhacaya marka aad noqoto qof firfircoonidiisu yar tahay tani waxay ka dhigaysaa mid aad ugu nugul dhaawacyada iyo jajabka lafaha oo qof weyn mar walba waxa uu noqon uu dhaqaaqiisa ama firfircoonidiisu ay yaraato wuxuu u nugul yahay lafa xanuunka lafa bololka iyo jabniinka lafaha iyadoo xanuunka lafaha ay u badan tahay inay sabab u tahay cufnaanta lafaha oo yaraatay ama dhaawac soo gaaray laftaada waxay sidoo kale noqon kartaa calaamad xaalad caafimaad oo halis ah lafa xanuunka ama danqashada waxay noqon kartaa natiijada caabuqa iyo infectionka ku dhaca carqalad ku timaada quudinta dhiigga ama kansarka ku dhaca lafaha xaaladahan waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdeg ah haddii aad leedahay lafa xanuun joogto ah oo aan la garanayn sababta ha iska indhatirin ballan ka samayso dhakhtarkaaga si aad u ogaato sababta rasmiga ah oo keenaysa sababaha ugu badan xanuunka lafaha oo keena xanuunka lafaha waxaa sababi kara xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin lafaha oo jajaba ama jajab yimaada lafaha si xad dhaaf ah oo qofka u dhaawacmo iyo dhaawac soo noqda hormoon la'aan ama hormoonka oo khalkhal ku dhaca badanaana waxaa sabab u ah dumarka caadadu marka ay ka tagto waxay dareemaan lafa xanuun joogto ah caabuqa ama infectionka ku dhaca lafaha kansarka lafaha kansarka kasoo faafa halka uu ka yimid xubnaha kale ee jirka ama malignant metastasis xanuunka loo yaqaano kansarka unugyada dhiigga ama leukemia dhammaan intaaba waxay sababi karaan xaalado xanuun oo lafaha ah waxaa kale oo jira sababo kale oo suurtogal ah